ciyaar ay ahayd inay ku dhammaato saacad iyo badh ayaa lagu daray waqti dheeriya ilaa ay madaxa la gashay in ka badan 100 saacadood. natiijadii ka dhalatayna waxay noqotay 3,000 oo dhimasho ah, 15,000 oo dhaawac iyo 10,000 oo agoomoobay. ku soo dhawaada sheekadoo dhammaystiran. waxay ciyaartiisa reebreebka ee lagu kala saarayay cidda u soo bixi doonta koobka qaramada ee bartamaha qaaradda Amerika sanadkii 1970 kaasoo ay martigelisay dowladda Mexico. xulalkii uu tartamayay kaalmaha baxayana waxaa ka mid ahaa dalka Salvador iyo jaarkiisa Honduras. ciyaartii ugu horeysay ee wada dheelaan waxay ku qabsoontay caasimadda Honduras ee Tegucigalpa bishii June 8 sanadkii 1969. waagaas ay jamaahiirtu soo buux dhaafiyeen garoonka. ciyaartu waxay ku dhamaatay hal gool oo xulka qaranka dowladda Honduras saxeexday iyo eber. toddobaad kadibna waxaa lagu dhawaaqay ciyaartii labaad ee dhex mareysay labadan dal, balse markan waxaa la aadayay halka iyo dalka Salvador. bulshada reer Salvadorna waxay ahaayeen kuwo ka biyadiidsan guuldaradii haleeshay xulkooda ciyaartii ugu horeysay. ciyaartooyda xulka Hondurasna waxay garoonka ku soo galeen gaadiid gaashaaman. bedka uu ku fadhiyo garoonkuna waxay isku dayeen ciidamo hubaysan iyadoo laga cabsi qabo in gaboodfale ay u geystaan ciyaartooyda Honduras dadyogan gadoodsani. intaa kadib ciyaartii waxay ku soo idlaatay 3 gool iyo eber ay guushu raacday dalka Salvador, taasoo la micnaha in labada xul ay u baahan yihiin ciyaar kala saaraysa cidda u soo baxaysa koobka. waxaana la go'aamiyay in dalka Mexico lagu qaban doono ciyaarta taariikhdu markay ahayd 26 June 1969. ciyaartuna waxay ku soo dhamaatay barbardhac 2 gool iyo 2 gool ah, iyadoo lagu daray waqti dheeri ayaa xulka dalka Salvador u saxeexday goolkii guusha ee saddexaad. sidaas ayaana garsooruhu ku soo afmeeray. dadkii daawanayayna waxay aamineen in ciyaartii dhammaatay, balse tartan kale ayaa labadan dowladood u curtay oo natiijadu ka mug weyn tahay sida ay sawiranayeen bulshadu. dibadbaxyo rabshada wata ayaa ka bilaabmay dalka Honduras, sugna jira burbur hantiyadu ay ka mid yihiin goobo ganacsi, guryo, beero iyo warshado ay iska lahaayeen muwaadiniin reer Salvador oo ku noolaa dalka Honduras. taasina waxay daba socotay inay ka barakacaan dhulkii ay deganaayeen una kicitimaan arladii asalka u ahayd. waxaanay tani dowladda Salvador ku riixday inay u hanjabto Honduras kana codsato ilaalinta xuquuqda muwaadiniinteeda ku sugan halkaas, balse dowladda Honduras dhag jalaq uma ay siin eedeymaha iyo hanjabaadaha uga imanaya Salvador. waxaana Salvador go'aansatay inay weerar ku qaado dalka Honduras ilaa ciidamadeedii ay gaadheen duleedka caasimadda Tegucigalpa. dagaalkan labada dowladood waxa uu socday 4 maalmood oo dhammaystiran, iyadoo ay ku nafwaayeen 10,000 rayid iyo 10,000 oo dhaawacmay. intaa kadib ururka qaramada midoobay ayaa soo kala dhex galiyay labadan dowladood, waxaanay ku qasbayaan Salvador inay dib ugu laabato xuduudkeeda. hadhow waxaa dagaalkan loo bixin doonaa dagaalkii 100 saacadood ama dagaalka kubadda cagta. balse xaqiiqadu waa in dagaalkani qayb ka ahaa colaad aamusan oo ka dhex jirtay labada dal ee Honduras iyo Salvador. badka dhulka ay ku fadhido dowladda Hondurasna waxay 5 jeer ka weyn tahay jaarkeeda Salvador, halka tirada dadka ku nool Salvadorna uu ka badan yahay 1 milyan kan Honduras. maamul xumadii horseedka u ahaa nidaamkii militariga ee labada dal hogaaminayay ayaa bulshadan ku hagtay saboolnimo, gaajo iyo burbur dhaqaale oo kaliftay inay dalka ka barakacaan, farxadkooduna u galo dalka Honduras kana dhistaan xuduudka beero iyo dhaqdhaqaaq ay nolol maalmeedkooda ka soo saartaan. arrintan maamulka Honduras u arkay mid goodin ku haysa wax soo saarka muwaadiniintooda, waxaana ansixiyeen xeer loogu tarxiilaya dadka Salvador dhulkii ay ka soo jeedeen. go'aankanna waxa uu cadhageliyay dowladda Salvador u aragtay in dadkeeda masaakiinta lagu tacadiyayo. sidaa awgeed waxay uga faa'iidaysatay ciyaarta inay aargudasho uga dhigto dadkeeda. ciidanka Salvadorna waqtigaas waxa uu cagacagaynayay ilaa 20,000 oo askari, halka ciidamada Honduras uusan dhaafsiisnayn 10,000 oo askari. khilaafka labada dowladood waxa uu socday muddo dheer, isku day badan baana la sameeyay si loo dhayo boogahan buka, balse ciyaartii kubadda cagta ee dhex martay waxay ku reebtay mahadhooyin tiro badan ilaa ay ka soo wareegtay 11 sano labada dowladood ay kala saxeexdeen heshiis nabadgelyo ah. hase yeeshee meesha kama uusan saarin khilaafkii ay ilaa hadda waxa uu ku jiraa qulubtooda, waxaanad moodaa in laga dareemayo colaadii u dhaxaysay mar kastoo ay isaga hor yimaadaan kubadda cagta. dagaalkii 100 saacadood ma aha mid ay iloobayaan labada shacab. halkani waa Suwaydeli TV. haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar, dawankana taabo si muuqaal kasta halkan aan ku baahino uu ku soo gaadho. mahadsanid.